السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan dhammaan reer youtube meel kasta dunida daafiisa joogtaan. waa anigoo edebsana waan idin salaamay. rabadaanana kala baadsay waan kala baadnay muddo badan aan kala maqnayn. waxaan ku maqnaa cibaadaysi, waxaan ku maqnaa rabadaan, waxaan ku maqnaa shaqo iyo adduun iyo hawl adduun. ko saacadii markii shaqada laga yimaado gurigii hawshii cuntadii is very hard bay ugu noqotay inaan youtube duubo. walaalayaalo waxaan rabay inaan idila wadaago Soomaali haddaynu nahay dad waxaynu ahaan jirnay dhiigle, dad waxaynu ahaan jirnay ficil. maxaa ayaamahan dambe dhiigii iyo ficilkii iyo dareenkii naga qaaday? maxay tahay waxaan oo sawaxan ah oo qaylo ah oo buuqa cunug yar oo ama cadaan ha gursata ama madow ha gursata iyada u taashaay yaa nin maanta gaal yaa mucatab xidhanaysayaan. maxay tahay waxaan intaasoo oo been ah iyo intaasoo fadeexa iyo intaasoo xadaafiira looga sheegayo? maydaan damiir lahayn, maydaan dhiig lahayn, miyaydaan habla dhalin, miyayna habla idin la dhalanin, miyaydaan habla qabin, miyaydaan hablo u dhixin, miyaanay habla idin dhalin, gabdho miyaana idin dhalin? war Soomaaliya la yaaba qaasatan ragga. shame on you guys. nimankaan la hadlaya isku xishooda. waxaydaan waxba ka ogeyn, waxaydaan maad aragtay aydaan waxba ka aqoonin. ku yiraahda Afrika ku dhalatay, shalay bay wadan ka tagtay, wadan Hiblaaye ka timid, Kambay ka timid. ku yiraahda oo ninka wuu qabaa ilmo u dhashay, nin yiraahda oo meher la'aan bay kula socotay ninka 2 sano kula nool. waxaasoo dhan wax dambi oo la idin qorayo oo buuga idin galay. maanta wax aan beenahayn oo sal iyo raad lahayn oo dantaad meeshaadi soo gashatay yaa ad xoogaa fiyu inaan lacagba ku helin baa laga yaabaa. just fiyu xataa dadka ku dhageysanay way u jeedaan inay beentaa tahay, ama way kuu soo qorayaan, ama way kaa daba sheegi doonaan ay dhahayaan oo ruuxan beenaalaha ah. wallaahi hal wiil inta ka aamusta wayba ka aamustay, laakiin inta ka hadashay hal wiil keliyaata ayaan arkay wax si daacada uga hadlay oo yiri anu meeshan oo ku wareeray maba garanayo waxaan laga hadlayo. waa wiilka Zaki. laakiin intooda kale been, balaayo, propaganda, sawirkeeda ay sida war sawirkeeda u dhiga gabadha yar. gabadha yar sumcadda ha ka dilina, dadkeeda ha nacsiinina, sabab ha u noqonina inaad maxay hayday dadka uun maad aragtay ka eryataan. diinta dadka kama xigtiin, Soomaalinimada dadka kama xigtiin, waxaa dadka ka xigtiin ma jirto. waa adigan meesha soo fariisanay Soomaali ka sheekeynaya yaa ku og adiga waxaa tahay, yaa ku yaqaana. waxaad sheegaysaa leedahay waa la cabaa, yaa og inaad adiga cabtid. waxaad leedahay meelaha la taagan yahay oo gaalo iyo damba la socda, yaa og adiga inaad gaalo la socoto iyo inaad muslimka laftiisa aad qurun la samaysid, yaa og. qofna kuma ogo kuma yaqaan. marka waxaan aqoon beenaa ka sheegin. maalinba waxaan xasuustaa gabadhan dhalay waxaan arkay ayaa maalinba surwaal bay xidhnay. markaasaa gabadhan saaxiibanahay oo ilaa yaraanteedii aan saaxiib ahayn baa waxay la moodayeen inaanay garanaynin. markaas waxa lagu yiri gabadha ma arkaysaa? waa gabadhayda la tusaya ayaa ana ila socota. gabadhaas ma aragtid? ha hadda Afrika ka timid durba waa taa surwaal bay isku juftay. marka waxa lagu yiri maxay hayday hadda Afrika gabadhan ka timid waa taasoo durba surwaal bay isku juftay xirat. horta surwaal Afrika waa laga xidhan jiray, horeyna waa loo xidhan jiray, haddana waa laga xirtaa. surwaal ceeb maaha. laakiin Soomaali haddaynu nahay wax kasta ceeb baa laga dhigay. waxani ina wax hadda la bilaabay yahay oo social media u natusayo iyo wax waligeed soo jiri jiray inay tahaanan kala garanayn. aan waxaan leeyahay dadkii baa xumaaday mise waxaan leeyahay social media baa dadka xumeeyay. maxay tahay dhibaatadani? anu ma garanayo. bas marka gabadhii baan is aragnay, aduu markii waan kala fogeyn waan isku soo dhawaanay oo meel waxaan isla joognay, meel weyn baan isla joognay. maraan isku soo dhawaano nas qabanay bay tiri hay iyo warano waan salaano. markaan salaanay ayay igu tiri
gabadhaada la social la iga tuso waxa la yiri gabadhaasi hadda Afrika ka timid ka waran bay tiri hadaan aanu garan lahayn oonan aqoon u lahayn bay tiri ilaa yaraanteedii maxay ahayd waan aamini lahaa hadda bay tiri qaayaha waxaan ka wadaa gabadhan hadda dad baa waxay leeyihiin Afrika ku dhalatay oo halkaas ka timid dadna waxay leeyihiin wadanka ku dhalatay ama ha ku dhalato ama Afrika ka timaado Afrikana waa wadankeeni wadankan hadday ku dhalato waa wadan de aynu nimidu inuu soo haajirnay laakiin pointigaygu waxa weeye gabadhan yar oo saqiirka ah oo dhalinyarada ah oo u bixi dalka u soo kacayay ah ya horta guurku waa calaf diinta baa muhiim ah laakiin muhiimaddu waxa weeye in la garab istaago haddaanad garab istaagaynin hubso waxa laga sheekaynayo soo hubi inta been la nagu baran lahaa ilaa dadkan waa dadkii beenta badnaa waa dadkii waxay sheegaanba maxay ahayd aan runta ka sheego jirin waayo dad ajnabi oo yaqaanaba meesha ku jira oo arkay waxaad dhuraysa beentaadii propagandahaaga ma garatay marka haddaanad garab istaagaynin iskaga aamus wayna ka ahayn Soomaalidu dad ficil leh ahaayeen dad waxay ahaayeen dhiig leh dad wax walba ka dhiidiyayno ahayn dad wax walba ka dagaalamayno ahayn laakiin hadda aanu ma garanay social media dadka xumeeyay ma qabyaaladii baa si fogaatay oo dadkii xumaysay aanu ma garanay laakiin waxaan hadii lagu sii socdo waa waxa dhito la dhib inoo keenay fanaaniintii ba hadda maxay hayday xifaaltamaya waa dadkii lagu soo hiran jiray waa dadkii maxaan ku yiraahdaa dadkii isku soo dhaweyn jiray waa dadkii heesaha ku qeexi jiray waxa maanta taagan iyo waxa bari imaanaya heesooda ku qeexi jiray ayaa dhiga hadal wadankayga ma imanaysid kan kale ma imanaysid waxyaabo ma aragtay aan loo baahnay xumaantu ma wanaagsano ninna meel ma gaarsiiso gacmo wada jir bay wax ku gooyaan farkal iyo fool ma maydho hal qabiilo meel degay wax ma taro qoomiyad iyo dad isku duuban ayaa wax tara dadkan aynu la joognay darkaysiina wadankooda dhistay dad aan soo dagaalin ma jirto qabiil la isku dagaalo qof baa la isku dagaalo laakiin waxaan wuxuu leeyahay dhamaad laakiin Soomaali wixiisu dhamaad ba male hal qof baa la soo qaadanaya sawirkiisa kulli waa la iska soo wada daba qaadanaya beentii baa la soo wada daba qururuxinaya waxa la leeyahay kana kii kale war cidna diinta kama xigteen cidna Soomaalinimada kama xigteen ilaahagi ku abuurto intaad ka baqdo waxa sheegayso wax runa ka sheeg si xoolahaad waxaad cunayso oo xalaal marka aan videogeena intaan ku soo gabagabeynaya maalin habeen gal waxaad ku jirtaan haydin wacnaato subscribe like comment share waxana beenta aliska daayo waxa la hubsado maalin ba waxaan xasuustaa migration kan gabadhu raacay ninkeedii u dacwoonaysay waxa dhacday waxay ku tiri gabadha migration ka waxay ku tiri anigu marxaati waxay tiri marxaatiya keenso ninka naas qabtaan waxay tiri anu marxaati uma baahniyo cunugeygaaba marxaati oo anagu Soomaali hadaan nahay meher la'aan ilmo ma dhalno waxay ku tiri dhageyso waa naag cad oo gaale dhageyso bay ku tiri adigu naftaada iska hadal bay ku tiri ka hadlin Soomaali soo arkaysid bay tiri qolka dhan ee kabadhada yaale buugtu ka buuxaan waxa soo warqad ee buuxda kulli waa Soomaali wada leh waa la nuxoogay iyo aabalaan ba carruurta la nooga dhalay kulli waa wada Soomaali bay ku tiri ee aduun iska hadal marka beentaada marka la barto de berito ma dhihi kartid dadka wax runa uma sheegi kartid waa runtii markaad sheegto laguma aaminayo kuwii ka horeeyay beena iyo balaayo soo dhuray marka war magaca sumcadda hay naga dilina magaca sumcadda hay naga dilina magaca Soomaaliyeed waa magac qiimo leh gobolka doonta ka soo jeed qabiilka doonta ka soo jeed laakiin hal mid iyana laga maxay ahayday hoos marin Soomaalinimada qadiyada ha meel ku ahaato ku taagnaato hay qadiyada iyo Soomaalinimada ku weyno laakiin wadanka dooni ka soo jeed qabiilka doonina ka soo jeed laakiin Soomaalinimo iyo ma aragtay
iyaan lagu doorsanin waxba marka lagu dhaho qofkaas waa Soomaali marka Soomaalinimada ha idinku weynaato Soomaali meel loo dhaafay aysan jirin gobolka dooni ka soo jeed ama Puntland ahow ama Somaliland ahow ama Jubbaland ahow ama Somali State ahow ama Soomaaliyadii weyneeda hore ahow waxaa doonaysid ahow ama Soomaali kalaba ahow ya waxaa doonaysid ahow waa inaynu ka sinaano Soomaalinimada dad si calanka dooni hayso Soomaalinimada waa in laga sinaado fanaaniintu waxay dadka isku soo jiida oo heesaha qaada dadka isku soo jiidaya maantana heesayeen oo dhan waxay noqdeen dhiga hadal iyo wax la isku karbaashay iyo wax dadka si kala fogeynay heesiba heesta ay ka dambayso oo fiirsada waa hees nacayb oo dadka kala fogeynaysa mid walba uu leeyahay aniga kan iyo reer hebel baasadan waxaasoo laga qurux badan yahay dadku isdhaxgal sameeyaan hal wada shaqaysto hal ismaal geliyo horumar hala sameeyo qaasatan dhalinyarada hadda soo kacaysa waxay odayaashii waaweynaa caleentoodu dhacday qaarna hadda wali madaxnimada ku jiraan qaarna ay maxay ahayd ay dhinteen ay diin abaabuleen wali ha ku jirina wiilal iyo gabdhaba inaad gacmaha intaas qabsataan qabiil halka ku tuurtaan wada shaqaysataan horumar gaadhaan ilaan idin ma ogolo inaad kursi ku fadhiisataan iyo inaad wadankii xakuntaan nin walbana inuu wad ka kaxeeyo ma ogiye weligii kursiga ma ka kacayo oday waliba catatay halkaas kursiga dul fadhiya idinku horumar sameeya oo wadankiina dhista oo isu soo saara oo isku duubnaada hay ma garatay maalin waxaan xasuustaa diyaarad baan saarnaa diyaaradeedii Dubai bay ka timiday Hong Kong baan soo marnay transit ku ahayn diyaaradda dhan waxa saarnaa indha yar iyo carab iyo dad cadaan iyo waxa saarnaa hal wiil oo aniga iyo hal wiil baa madow ka ahayn diyaaradda dhan uu soo kacay wiilkii kursi geesta shisha ka banaana kuraas xagga iga xigta ka banaana ay kulba soo fadhiisanayo iga sheekeynay wuxuu waxa soo dhanna waa midabkayga علشان انت نسقى اسكن مدبنا هاي وند افريكان صلاحي هذا شو بسنتر كي قف مدو يقى صهر بحوي سلامة قف جاب حد انا اسلام عاد يقى صهر بحوي سلامة دينت هذا يمدب كاغا وحلو ديقو اي سنجرين ما قالت مركا هورو مريس كارسية idinku wax istara idinku isku duubnaada calanno aakhire idinma geynayo janno qabiilo janno idinma geynayo reer hebel kuma ahaanaysaan maanta haddii aad maad aragtay wax qabsanaysid lama dhahayo wiilkaasi waa reer hebel laguma odhanayo hadda nin Soomaali wiil Soomaali wadankan aan joogo ama kuwaan dhalay ama kuwa ay gabdho kale oo Soomaaliya dhaleen hadduu hadda orodiyaan noqdo qof dhahayo waa reer hebel oo gobol hebel buu ka soo jeedo calankiisa keenaya ma jirto calanka uu kor u qaadayo waa calanka Soomaaliyeed ee buluuga صاحد قرتين معها مركا دي بسوق النقطة قبيل إيو على أنت حاجة سكدكتان إذن كسكو دوبنادا وانا ذا السلامة دمانتين إلهي إذن نوغر دقوانا خير قبطة إن شاء الله سكو دوبني أي نسكو بنهي إيا صومال النمو دمانتين وانا ذا وضا السلامة تم فيديو حيقا كل ما إنو سداي النبت يس أرق دنبو حيسالة لايك تنا بدية لايك تي فيو بسم الله كا لايك تبدية ديكور نو قاضة أو هري نو وضع إن شاء الله انتهي إنك بدن بينو كله لينا السلام عليكم.